dirisle inuu dhahay aniga nin Ethiopian ahay sax miya su'aashaasan ku weydiiyay asaga inuu dhahay nin Ethiopian ha saasuu dhahay aniga nin Ethiopian ahay uu dhahay sax miya anigi oo noolaa koor joogay animi weydiis maxaa ayuu kan lugu dirisle aha ku jawaabay marka adiga jawaab dirisle taas aniga go'aan gaari karay okay haddii ay laba qof oo Soomaali isguursadaan oo ay Sweden ku dhalaan wiil ama gabadhaasi ama wiilkaasi waa Swedish laakiin dhiigiisu waa Soomaali oo waa nin hooyadii aabi ay Soomaali yihiin aniguna waxaan ahay wiil uu aabi Djibouti ka yimid oo Ciise ahaa hooyadiina ay jidwaaq ahayd oo dhulka lahayd oo isku imaadeen anaa dhashay Ethiopian baan ahay laakiinse dhiigiigu waa Soomaali wakaas hadduu fahmi waayo waa lagu fahansiinaa aniga kulay wax lagu qosla ma arki aniga wax lagu qosla ma arki qofka kan Mareykan ku dhashay iyo kan Canada ku dhashay iyo kan Ingiriiska ku dhashay dhul walba uu ku dhashay markii la dhaho jinsiyad markii la dhaho fiiri jinsiyad markii la dhaho iyo markii la dhaho dhalasho labay kala tahay dhalasho Ethiopia dhalasho hebel waa qaadan kartaa laakiin jinsiyadaada ma ka gudbi kartid nin Soomaali ee si kasto wadamo kale ugu dhashay iyadoo Soomaali laga hadla war ana hadda South Africa ku dhashay iyo hadda Mareykan ku dhashay markii Soomaalinimo ay imaado wiil Soomaaliyeed Soomaalinimada faas passport Ethiopian oo haysta aruusho waxaan rabaa aan haysto waxaan doon aan haysto waxaan doon idiisa bedeli lahaa ama jinsiyad uu saan ku tilmaami lahaa iye war anagaabo 20 million nal ku tilmaamaaye haddaaba af Soomaali ku hadlaysan Soomaaliya ay tahay dadkan ku badseena population kale isku qiimeeyaa marka Ethiopian iyo maxaa lii jireen ama xaare iyo jin iyo haba ka hadlinbo waliba adoo iyaga u eg meeshii ka soo jeedaan ku dhasho la dagay oo ku luuqaday waa ka baa hadalka okay ani horta Ethiopia ku dhashay gaar ahaan waxaan ku dhashay dawlad deegaanka Soomaalida gaar ahaan waxaan kaga sii dhashay laanta hawada xabashi waa la noolaa Soomaali baa la noolaa Oromo la noolaa Eritrean baa la noolaa Sheekh baa la noolaa Shaydaan baa la noolaa ma fahanteen marka anu haddaan aan ku ag taaganahay ama aan ku hor taagan ku leeyahay waxaan ahay nin jijoogu dhashay qofkii jijoogu dhashay wuxuu xaq u leeyahay inuu sheegto Ethiopian laakiin dhiigay waa Soomaali jijiga laga maro qofkii caaya iyo qofkii ka soo horjeesta waa ka soo horjeedaa sababtoo waa ku dhashay xudunteeda ku duugan markaas taas macnaheedu waxay tahay nin jijigaawiyan ahay maamulka hadii la dhahan Ethiopian maamusha Ethiopian baan ahay haddii laga soo baxo waxaas oo la yimaado dhiigana waxaan ahay nin Soomaaliya oo macnaha Djiboutiana oo Ciise hadalku waa dhamaaday Oromo iyo waxaas dhibaato ma jirto waa naga badin dadka afku ma dheen karno laakiin haddaan noqdana dhibaato ma arkani ano Oromo haddana Soomaalidu way ka jeclaan kartaa dhibaato ma jirto waa dhameystaan oo ka okay adeer waa ni bariya inkastoo in hadalka aan ku soo noqday ahayn hala ku raacina yara la hawa ku reelina ano tigtiga ku maxallada Ethiopian macnaha dadka tigtiga jooga Ethiopian Soomaa ayaa haddana awood aad u fiican ku leeyahay aad u fiican tigtiga ama Ethiopia ilaahay mooyaan qof wax iga qaadi kara ma jiro soo baxdana Soomaaliya kula imaana oo macnaha inagoo dhan Soomaaliya wadanay muugti sidoo kale ilaahay mooyaan qof wax iga ma qaadi karo Soomaaliya kula imaana waa la wada garanayaa Djibouti kula imaana madaxdii baan nahay marka qaar kood madaxda Soomaaliya intaas ugu yeerno aashirina go'aankii soo baxana kala qaata dhahnaayo waa kala celinaa awooddaasna waa leenahay saa wala soo maraa waxaan nahay dad dhan oo meel leh haddana meeshii dadka kale ay lahaayeen la qaybsanay jigada baa la qaybsanaa diri dhab anaga iska wada leh Soomaaliland waa iska qaybsanaa dhibaato ma jirto Boorama xogaa waa iska qaybsanaa Soomaaliyana soo kala iska qaybsanaa saas waay marka maalin dambe marka ayaan ka hadlaa arintaas adeer warka inaan ku laabto ma jecleen aniga dirisle ma inaan ku laabto ma jecleen adeer hal mar horta aniga waxaan ka hadlay population dirisle iyo inta ku fikirka ah iyo inta ku mabda'a waxaan u sheegaa qabri dahar jigjiga dawlad deegaanka dhahan dhulkan dhan ogaadeen la isku dhaho dhul Ethiopian ma ahan Ethiopian ma lahan qofka jigjiga iyo qabri dahar dhankaas ka imaadanay
dhul Ethiopia kama aysan imaaneen dhul Soomaaliyeed ka imaadeen waliba Soomaalida dadka ugu kartida badnaa ugu qadiyada badnaa ee ogaadeen ya dhulkaas dego intooda badan kama imaan iga aamu waa hadashay iga aamu waa hadashay adiga oo shakhsi ah oo dirisle ah aan waxaan ku lahaa ina iska ka gooyo oo qoomiyad kale kugu tilmaamo ma rabiye adigana dhulkii Soomaaliyeed waxa leedahay Ethiopiana oo dhul Ethiopian ka imaada leedahay no jijiga waa dhul Ethiopia ay leedahay sharciyan Ethiopia wara anaga da shaqo dhageysanaaye no sharciyan ku dhageysanaaye maxaa aamusa beena way ugu dhurtay aan ku dhageysto maya anaa idin soo war anaga haddaan Soomaali nahay population ahaan waxaan ku tilmaamaa dad yar inaan nahay laakiin dad badan aan nahay qoomiyada kale iyo dadad kale iyo qaarada kale aan ku tiriyaa un degannahay hadda ninka Mareykan ku nool ee passport Mareykan haysto Mareykan u diiwaan gashay population kooda ku jira wala kuwa nin Soomaaliyeed waay dhul badan oo Soomaaliya ee leedahay ilaa Kenya hadda Kenya waxa naga jiro dhulal waxa naga jiro oo maxaa la dhihi jiro Soomaali leedahay laakiin Kenyaanka ee maamulaan oo Kenya ay ku tiriyaan xuduuda naga maqan marka waxaan rabaa walaalkay dirisal inaan dhaho maadaama dad public jooga aan nahay dhalinyaro yar oo Soomaaliyeedna aan nahay annaga la rabaa dalka iyo dadka iyo ciidda ina u hadalno asaga ina Ethiopian dhah ma ahan aniga inuu macnaha Ethiopian dhaho ama oo Djibouti ama Kenyan ama dalal kale oo dhah ma ahan wax uu ku hadlaayna waa wuxuu dhahay hadaa ciise nahay Djibouti degnaa Somaliland degnaa intaan degnaa waa wax fiican waay adoo nin ciise oo nin Soomaaliyeed oo nin Djiboutian ina meel walba degtaan sharaf ay taa kuma diidan xumaan ima ahan laakiin ciidda iyo dadka Soomaalida ee meelaha kale ku hareeraysan dal kale iyo qoomiyad kale iyo jinsi kale hasiinin adiga hadda hortaayna daayid Ethiopian ah anigana ku farxi maay Soomaalida kale ku farxi mays walaalkeena tahay nin Soomaaliyeed ah meesha aad ku dhalo waa ka baxda ay bes ay hal mar hadla bes hadana kala ixtiraam anaga ina buudka ku qulto buudka hadana kala ogo idinso ama live ka gool hal mar hadla ma torane hal mar hadlo horta gudil aan san bara hadlo horta jijiga Arush inaan anu uga sheekeeyay mooyaane Arush aniga igama sheekeyn karo dawlad deegaanka sababtoo ah waxaan ahay nin intaan uu leeyahay jijiga ku soo leekaaday jijiga maaha macnaha dhul ka tirsan Ethiopia oo dhulkan Soomaaliya askale laakiin haddada la taagan yahay Ethiopian baa maamula Ethiopian ka tirsan tahay hadda soo ceshanayna inaga noo taala taas waa mid ma fahanteen midda kale waxa waaye arintan kale uga sheekeeyo isku wada mid baa naay waxaasna isku mid baa naay taamim diidan maari intaas way hadalku laakiin wuxuu dhahay jijiga Ethiopia kama tirsano anu waxaan sheegayun dhulka inay Soomaali leedahay oo Soomaaliya wali saxdii noqon 100% maaha dhulka ma soo qaadan karto ma dhihi karto dhulka waa rabnaa hadhow insha Allah hadan hadlayno yaa wax ka qaadi karno Ethiopia waa ka soo ceshanaa dhulkeena laakiin haddana la taagan yahay Ethiopia maamusha khariirada dad eegtina Ethiopia jijiga ku taala hadalka waa dhamaaday gameka inoo bilaaba hadalka lama jiro masha wixii su'aal ah gameka isku weydii hadalka ma jiro okay adeer hal mar ninka muuda iska gelina ani gumeystaha waxyaalaha ay sameeyaan waxa waaye intaysa dadka iyaga ka dhashay aysan hadlin dadka iyaga ee la dhaqmaanay u hadlay waxay dhaanoo hadla war jigjiga waa dhul Soomaaliyeed dadka deganna waa dad Soomaaliyeed waana dadka ugu qadiyada fiican Soomaalida hadii la dhaho haddaan anaga aaminno ama keena dhalinyarada uu gudbiyo uu dhahayo dhulalkaas ay Ethiopia haysato waa dhul Ethiopian haday dhaha oo loo jara iyaga la siiyo afka haddaan ka dhahno oo ficil ahaan u dhahno oo mabda ahaan u dhahno oo fikir ahaan u aaminno biriso iyaga ma qaadanayaan 9 gobol ma u maleynaa 9kaas gobol oo dhul Soomaaliyeed waay shalana way ahayd maantana way yihiin birina way ahaan doontaa hadday iyaga maamulaan ama maamulkooda iyaga uu ka shaqeeyane maamulkaas uu dhamaana waqtigiisana uu dhamaado Soomaaliya iska hal mar Arusho hal mar horta labadiina isku meel wax u wadaan laakiin waa isfahmi laadeen jijiga ya iyo Soomaalida degta Ethiopia dhulka ay degan yihiin dhul Ethiopian maaha
وأدول الصومالية قميستيه إنجليز كان سي إثيوبيا لوكاس تدك دقن ماشا مامولك ماشا كتيرا عيدن كتشوغا دمان وقوة صومالية وادتك الصومالية هاي just وحي كتر سنيهين معناها إثيوبيا وإثيوبيا دولة هوسة إثيوبيا أي هوس إمادان إثيوبيا قومية بدنا كتيرا أنا قومية كمية أنا قومية معناها الصومالية اللي راه مارتي مصطفى عكترا مدحوينه واه أساقا أنا وحو دونا سمايا هرت ساسو هذا وأنا داد حرة داد لقميستان معها ما قرأت وداد وحي دونا سمايا أرمدا مدحا كتبيا أمحاردا مدحا كتابتا وحي ربان إثيوبيا كسمايا وحر لكن مدى جتا وحي تاي بريقي قميستها أنا هاد سومالي هدان نوانا للعي قارس إلا قارس أنا أسكرت ما فهمت dhulkaas dadka degan dhulka ay degan yihiin dhulkooda Kenya ayaga iska leh laakiin dawladda Kenya ay hoos tagaan ma fahantaadi labadaba annaga iska leh waana soo ceshanayna insha Allah maalin baa jiri doonta hadda ka hor waa la isku dayay Maxamed Siyaad Barre 77 dagaalku wuxuu u galay waa dhulka ka maqan Soomaali inuu soo celiyo rabo ma fahantaadi waan la soo celi doonaa Soomaali markii ay israacdo oo ay awood yeelato إن شاء الله دولكينا وابسوع عشرين نابا صومالي وضع صعود دولكينا لما هي سكروا أنا جبا تفرارق نوك الاحتراء أنا جبا قبيل أساقين كهرني مركا وندي صومالي وضع صعودها دولكينا إثيوبيا وكدورني ما لنت هاسني بريال الله قصوا قادم ما ضح أنت اللي جبيو أنا دولكينا صاحب كسوع عشرين وأنا سودوات هذا وسودوه إن شاء الله أساس ويدعو أيوب هل سؤالك ودينا انت اشكت وكس صحنت هي درسل انه داي انيغا نين ايثيوبيانا اهي مكو صحنيه درسل هذا كسيدو اودي يا انا وافق انت افكا او كداي وخو داي وحو كسعيا كو شيغ فيري وحو كليا ما تقات دغيسو وحو كليا درسل انيغا نين سوماليا جigjigaana ku dhashay ya meesha aan ku dhashay waa dhul Soomaaliyeed laakiin waxay hoos tagaan dawladda Ethiopia معناها دولك ودول سوماليات ساسو هذا الكود يعني ساسا أفسرت ما قرأت أيوه فيري على شذا إسكتناف مامل هوستك إسكتناف دول معناها جميز هست إسكتناف درسل إنه ده يعني نين إثيوبيانا هاي سحمية سؤال شو سنقول يعني السجى إنه ده نين إثيوبيانا ساسو ده يعني نين إثيوبيانا هاي وده سحمية أنا يجي أنور أبو كور شوي أنا ميوديس بحاجة كلو درس لها كل جوابها مركز هذه جواب درس تاس أنا جواب قاري كده أوكي هذه أي لما قف Soomaali iskuursadaan oo ay Sweden ku dhalaan wiil ama gabar gabadhaasi ama wiilkaasi waa Swedish laakiin dhiiggiisu waa Soomaali oo waa nin hooyadii aabi ay Soomaali yihiin aniguna waxaan ahay wiil uu aabihi Jabuuti ka yimid oo Ciise ahaa hooyadiina ay jidwaaq ahayd dhulka lahayd oo isku imaadeen ana dhashay Ethiopian baan ahay laakiin se dhiiggiigu waa Soomaali wakaas hadduu fahmi waayo waa lagu kala lagu faransiina